waxyaabaha soo socda runtii aad u mahadsan tahay runtii taas waxa waaye xaqda Suuriya waaye wadan kastaba adduunyada sovereignty haysta ama xorriyad guud haysta wuxuu xaq u leeyahay inuu waxyaabaha localka ah oo gudaha ah inuu aayihiisa iyo mustaqbalkiisa ka taliyo ma ahan maanta wax laga barbarayaa beesha caalamka waa wadan kastaba waa waxyaabaha xaq uu leeyahay oo ugu jira qaramada midoobay waxay tahay inuu isagu ka taliyo aayihiisa iyo mustaqbalkiisa marka dawladda Soomaaliya xaq ay u leedahay waxay u aragtay fargelin shisheeye oo dawladaha yani ajaanibta ay ku sameynayaan inay kaga dacwooto jawaab celin degdegan ay ka bixiso runtii midna waa sax kala shakiya jiro oo siyaasiyiinta Soomaalida runtii 10 sano 15 sano ugu dambeeyay beesha caalamka ama beesha lixaasida dadka qaarkood u yaqaan waxay awoodda ugu weyn gargoortanka siyaasadda markii la galayo dadka ugu dambeys go'aanka ka gaaray ay ahaayeen marka cabsi waa jirta oo siyaasiyiinta qaarkood waxay leeyihiin beesha caalamka soo faragelisa arinta si go'aan ugu dambeey loo gaaro laakiin mar kastaba siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha Soomaalida iyo hogaamiyaasha mucaaradka waxay ku xiran tahay mar kastaba in ayagu mustaqbalkooda dalkooda ay ka fakaraan waana beesha caalamka iyo James Iswaan aan loo hoos fariisan runtii waxaan isleeyahay wax hadda arinta ku soo beegaysa waxa waaye heshiis doorasho aan wali la gaarin heshiiskii doorashada aan wali rasmi loo gaarin iyo shirkii ugu dambeeyay afisyooni teendhada afisyooni ka dhacay oo aan wax mir dhal ah aynan ka soo bixin isleeyahay sababta ugu weyn ee hadda dawladda Soomaaliya ay ka qayliseen runtii wali qaangaarnimo ma aanan gaarin wali waxa waaye awoodii si dalka u burburay 30 sano ugu dambeeyay kabasha lagu jiray marka ismalihi ayadana beesha caalamka maqanta go'aan rasmi ah la gaari doono laakiin mar kastaba beesha caalamku waxay leedahay meel gaar ah munaasab ah oo ay talo iyo tusaale ku leedahay iyo technical ah laakiin kuma lahan decision ka ugu dambeeya madaxda Soomaalida iskale runtii ra'iisul wasaaraha sababta ma waa sax waaye maadaama xil gaarsiin uu yahay mas'uuliyadda ugu ballaaran xukuumadda ay ku dhacaysaa maadaama xukuumadda waxa sharci kaliya ay haysta maanta waa xukuumadda madaxweynaha waqtigiisa waa ka dhamaaday baarlamaanka waqtigiisa waa ka dhamaaday sharciyada kaliya ninka haysta waxa waaye ra'iisul wasaaraha marka ra'iisul wasaaraha asaa la rabaa go'aankaas mas'uuliyadda ah in yani wadanka doorasho amni ah iyadoo dhamaan loo wada sameeyo dawlad goboleed iyo dawladda dhexe runtii taas waxa waaye yani amniga markii la yiraahdo amnigu waa mas'uuliyad wadareed oo yani dawladda bis lagu ma aamino oo meelaha ugu muhiimsan AMISOM noo ilaalida marka dhamaan ciidamada AMISOM ee Soomaaliya taageeraya iyo dawladda ciidamadeedaba dhamaantood waa mas'uuliyad wadareed saaran cid gaaran lama dhihi karo ammaanka wadanka gacanta loo guuyo aad iyo aad waa iskaga filayaan rajo weyn aan ka qabaa in wadanka doorasho sanadkan dhamaanaya 2021 hadaysan dhicin 2022 inay horaatinkeedu madaxweynaha Soomaaliyeed oo 4 sano hogaamiya inuu la soo doorto oo wax muddo korortiin aysan dhicin insha Allah waa mahadsantahay waxaan u arkaa